السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan bulshada islaamka, dhammaan bulshada Soomaalida meel walba ay joogto. waxaan leeyahay walaalayaal waa idin salaamay, salaanta islaamka idinku salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaan rabaa inaan mataqaanaa hees soo baxday xalay oo su'aalo badan ama la isoo weydiiyay waxay ku saabsan tahay inaan hadda idin sheego oo la magac baxday heestuna ay la magac baxday damqasho hooyo waxa sameeyay abwaan dhalay walaalkay Cabdi Fataax Xasan Sheekh Muumin oo loo yaqaan Cabdi Curiye laxankana waxa iskale walaalkay Cabdi Fataax Yare muusiguna waa Santana waxaana ila wado ila daadihinaysa walaashay Hodan Shabiin fanaanada caan baxday waxaan rabaa inaan halkan idin sheego heestu waxay ku saabsan tahay hooyo Soomaaliyeed waa true history hooyooyinka Soomaaliyeed ee qurbaha iyo meel walba ay joogaanba kaligood caruur ku noqday iyagoon aabihiina uu nool yahay oo Ilaahay lixaadkiisa u dhameeyay uu isaga dhaqaaqay ma aha ilmaha haduu ka dhaqaaqo labada qof inay kala tageen calafku waa dhamaada labada qof way kala tagaan laakiin ubadka Ilaah baa idinka dhaxaysiiyay mas'uuliyaduna waa idin dhaxaysaa marka waxay ka hadlaysaa aabaha intuu ilmo dhalay gabadhi ama ay kala tageen ama mataqaana whatever ama ay isqabaan laakiin nolol kala raadsaday oo meel kale iska aaday oo mataqaana ilmihiisa halka ku ilaaway marka waxay leedahay farxad iyo damaashaad ilmahaago daayacan sideed ugu dulnooshahay dunida tasheedo dadka ula caweysaa ragna ula qoslaysaa marka anigu alshan page kaas ayaan leeyahay kooraskaas wato hodana waxay ka hadlaysaa hooyadu siday mataqaana ay dawo u tahay dugsi u tahay maxaan ku dhahaa ay u noqotay alshan labadii dhanban aabihiina ay tahay hooyadiina ay tahay haday wanaag iyo mataqaana wax walbana ay tahayna ay iyadu xalin karto Ilaahay baa xalka iska leh marka heestaas damqasho hooyo message weyn bay xambaarsan tahay waa runtii hees qiimo badan leh abwaankana maskaxdiisa ma sha Allah ay ka soo lisantay waxaan idin dhihi lahaa mataqaana miraheeda dhageysta dhuuxana qaabka ku socotana dadkii isoo weydiyo rabay inay ogaadaan qaybka ku socotana waa qaabkaas علشان هوي إيه أبي كسعتها إيه عروض تيو ده متقنا طاقة كبحي مركو حن إلهي كبريا إنه متقنا فاميلة الصومالية إلهي أقرقارو أنتي متقنا إن إسكوح المانت إلهي إنه إسكسو عليو أنتي متقنا مانت عروضتي أنا الصومالية إلهي إنه متقنا لبدي قفو إلهي كبريبا إلهي إنه تعال لبدي دنبا إلهي كسيو مرك إلهي بان أبريا هوي والبقو الصومالية أم بهوي أنا هاي إن إلهي كريالو أو متقنا إلهي أولادس ay ku tabcayno oo nusas ugu soo dadaalayno Ilaahay inuu baari inooga dhigo oo mataqaana Ilaahay inooga dhigo awlaad saalixa baa Ilaahay ka bariya waadna mahadsantihiin baa idin leeyahay insha Allah waa inoo heesaas oo kala iyo heesa kale oo fiican ba insha Allah rajaynayna waxa idin leeyahay idinka